السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada halkan ku xiran kusoo dhawaada caalam dahsoon waxaad sheekooyinka baraleyda ah ee carruurnimadii ku maqashay dad qallo sida dhegdheer iyo qaar kale oo badan kuwaas oo jirka bini'aadamka karsan jiray oo aad u jeclaa balse iyadoo xaqiiqo ah ayaan idiin haynaa weliba aad uga xiiso badan Armin Weiss magaalada Kassel ee waddanka Jarmalka ayuu ku dhashay sanadkii 1961 shaqadiisu waxay ahayd farsamayaqaan dib u habeyn ku sameeya kombiyuutarada yaraantiisii wuxuu ahaa nin cidlo ku soo koray oo maskaxiyan noqday shakhsi kelinimo aabihiis noqday aabihiis wuxuu ahaa nin adag oo aan naxariisan wiilkiisana aanu jixin taasina waxay sababtay in wiilkiisu uu si daran u koro ilaa uu markii dambe aabihiis iyo hooyadiis kala tageen markaas ayaa Armin aabihiis ugu dambeysay il dambena ma uusan saarin cilada iyo murugada uu dareemayo ayaa ku abuurtay depression aan caadi ahayn taasoo keentay inuu xitaa isu maleeyo in dunida uusan qofna ku noolayn wax walba ayuu isku dayay si uusan cidlo u dareemin balse waa awoodi waayay inuu cidlada ka baxo waa halka uu fikirka xagjirka ah kala soo baxay wuxuu go'aansaday inuu dadka bini'aadamka ah cuno si uu cidlada uga baxo oo dadkii uu cunay ruuxdiisa u wehel yeelaan maadaama uu jirkooda cunayo dhakhaatiirta cilmi psychology-ga ayaa aaminsan in dadka kelinimada xaddaafka ah dareema ay ku fikiraan inay dad cunaan si ruuxdooda gudaha ay wehel u hesho oo nafta qofkaas ay cuneen ay wehel u noqoto waa cudur ka mid ah cudurrada nafta ku dhaca markii ay hooyadiis dhimatay waxaa ku siyaaday depressionkii isaga oo dareemay kelinimo aan qof bini'aadam ahi dareemin wuxuu keligiis ku noolaan jiray daaruu hooyadiis ka dhaxlay wuxuu gaaray heer uu qolkiisa dhexdiisa uu taallo uga dhiso hooyadiis si uu ugu soo xasuusto una weheshado habeenada qaarna uu ku dhex seexan jiray halkaas wuxuu bilaabay inuu tallaabooyin qaado si uu cidlada uga baxo internetka ayuu ku arkay website ay ku wada xiriiraan dadka bini'aadamka cuna ee loo yaqaano cannibalism wuxuu soo dhigay qoraal uu ku sheegayo inuu doonayo qof da'diisu u dhaxayso 18 ilaa 30 kaasoo cayilan si uu u qasho uu u cuno la yaab ma jiraa qof raba in la cuno durba Brandis oo injineer ah ayaa soo jawaabay oo sheegay inuu diyaar u yahay in la cuno sida uu Armin u rabo inuu qof cuno ayuu ninkanina u rabaa in isaga la cuno oo maba sugi karo inta la jarjarayo ee la cunayo cajiib maalmo kadib waxay ku kulmeen labadii nin xarun tareenada laga raaco ninka raba in la cuno oo lagu magacaabo Brandis ayaa wuxuu soo gatay 20 xabbo oo kaniiniga hurdada ah si uusan xarun u dareemin marka la qalayo dadaqalka Armin Weiss gurigiisa ayuu keenay Brandis wuxuuna kaamiro ku xiray meesha uu ku qalan lahaa si uu u duubo ninka la qalanayona arrintaasi waa ogolaaday Armin Weiss wuxuu yiri markii aan guriga keenay dharka ayaan ka siibay xaqiiqatan waanaan u riyaaqay cashadayda yacni waan ka helay inaan ninkan ku casheeyo dadkii muuqaalka daawaday waxay sheegeen in Armin Weiss uu markii ugu horeysay jaray xubinta taranka ee Brandis isaga oo durba kariyay waliba way wada cuneen yacni Brandis iyo Weiss xubinta ayay wada cuneen maadaama Brandis uu kaniini fara badan cunay walina uu miyir qabo wuxuu wax ka cunay xubintiisii taranka Armin wuxuu yiri markii aan intaas sameeyay waxaan garan waayay waxaan sameeyo ficilka xiga ee aan ku dhaqaaqayo ayaan aad uga argagaxay ilaahay ayaan weydiisay inuu iska cafiyo kadibna mindi weyn oo baangad ah kuwa looda lagu qalo ayaan dhankiisa la soo aaday kadibna qoorta ayaan ka jaray kadibna waxaan suray oo ka soo laalaatay darbiga waa sida lo ama ari ama neef geela oo la qosolayo ama la qaranayo kadibna xubnihiisa ayaan jarjaray aniga oo laba u kala jaray intaas kadibna biyo kulul ayaan ku daadshay aniga oo dhaqaya xubnihiisa
miiskiisa cunnada ayuu dhalo khamro ah dhigtay isaga oo karsanaya hilibkii ninka, kadibna wuu isku cunay oo halkaas ayuu ku cunay casho uu ku tilmaamay midaan caadi ahayn. Armin wuxuu yidhi markii ugu horreysay aan cantuugay, yacni aan afka gashtay hilibkiisa waxaan dareemay waxaanan sharaxi karin. Macaanka hilibkaas 20 sano ayaan dareemayay oo ku riyoonayay. Hadda waxaan dareemay inaan gaaray heer ay ruuxdaydu ku xiran tahay dareenka gudaha ah ee uu hilibkaasi abuuray. Hilibkiisu wuxuu u dhadhamayay sida kan doofaarka, balse aad ayuu uga cuslaa, aad ayuuna uga macaanaa. Inkastoo aan ogeyn in dadka doofaarka iyo bini'aadamka isku mar cuna ay dareemi lahaayeen farqiga u dhaxeeya, balse runtii aad ayuu u macaanaa. Hilibkiisa qayb ka mid ayuu talaagada gashtay, isaga oo bilo badan cunayay, bilo aad u badan, qayb cunayay. Wuxuu go'aansaday inuu qof labaad raadiyo. Wuxuu isla website-kii ka raadishay dad uu cuno ee iyaguna doonaya in la cuno, ilaa uu markii dambe wiil reer Australia ah uu arkay isaga oo booliska ku wargashay. Koox boolis ayaa gurigiisa timid si ay u baaraan. Haweeney la socotay askarta ayaa furtay talaagadiisa. Waxay weydiisay waxa uu yahay hilibka talaagada ugu jira. Markaas ayuu yiri, maya, kani waa hilib xayawaan oo caadi ah. Inta ay fiirisay ay ku tiri, ma ogtahay anigu guri ayaan leeyahay, hilibna waan karsadaa, kanina ma ahan hilib xayawaan oo caadi ah. Xabsiga ayaa loo qaaday waxaana lagu helay dambigii. Waxaana lagu xukumay 8 sano iyo bar xabsi ah. Balse sanado kadib ayaa lagu eedeeyay inuu qof bini'aadam oo dhan dilay, isla markaana uusan mudlayn 8 sano oo kaliya, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im. Armin hadda wuxuu leeyahay, haatan waxaan ogaaday wixii aan sameeyay inay ahaayeen wax qalad ah oo uusan bini'aadam saaxi ah oo maankiisu joogo uusan samaynayn. Haddii aad ka heshay barnaamijkan, fadlan subscribe lana soco barnaamijyada aanu halkan soo gelino.